wixii arooska ka horreeyay ها adeed ahaa هي laakiin waa dareemi kartaa ee aroosku iska wala badan yahay هي سبه صصعب صواب Sugba. Wow. واو صواب بح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عسك فيرين ويا احنا صح وايا marka waxa weeye asxaabta qaaliga xogaa dhibaa jirto on dareemaya marka asxaabta qaaliga horta waxaan leeyahay soo dhawaada isku soo laabasho wacan run ahaantii aroosyo badan meherro badan safaro badan hayay dooniga dareemaya ugu dambeyn asxaabta qaaliga waa imaanay alxamdulilah run ahaantii mamar waan dhaartan Soomaaliya والله sila qurxan soo maaha marwada aan dhahayaa marka hore waxay ahayd ماريا ها marka asxaabta qaaliga horta soo dhawaada alxamdulilah hadda waa caafimaad qabnaa ilaahay wax kasta waa noo dhameeyey أديان ilaahay waxa weeyaan dad badan oo ku riyoon jiray maariye iyo waxa weeyaan يا saygeeda marka alxamdulilah ilaahay riyada waa noo rumeeyey alxamdulilah سيج يحاجي حاجي دم ويعني مقشد أما أنا كقول له حاضر wallahi run ahaantii waxaan dareemaa mas-uuliyad waa marka hore iska yohor baan hayo marka hore iska yohor baan hayo dareemaysaa qof kasta miska iska ableeyahay mas-uuliyad badan ma saaran laakiin waxa weeyaan horta waxaan leeyahay labadii qof ee sir naawiliya saamilaaska yar eegaysa daaqada maartaan u eegayo kale waxa weeyaan ha iska soo gabagabeeyo ilaahayna calaf isku daro waxaan leeyahay jacaylku hawaaro kasoo noqod wanaagsan kulli marwadu waxa weeyaan marwo aad youtube-ka waxba jiro youtube-ka ma garanay mala faraka yaalay waxa weeyaan wixii arooska ka horreeyay adeed ahaa haye laakiin waa dareemi kartaa ee aroosku iska wala badan yahay haye sugbe صصعب صواب wow واو صواب بح marka arooska inta diyaarintiisa waqti iska qaadataa intaasna waa ku mashquule oo waxaa laga yaabaa almost bil haddii ka badnayn waa ka maqanahay taasna waxay ahayd waa isdiyaarinayno ما شاء الله arooskii safaradii wixii marka alxamdulilah maanta waa wada joognaa الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلهي waxaan leeyahay intan in ka badan bilaahay noo siyaadiyo ilaahay nolosha nolol waartaa ka dhigo waxa weeyaan maanta haddaba maxaan idinla soo hor fadhiisanay maxaan maanta idin haynaa ama idinla hor imaanay maxay noqon kartaa talo marwey maadaa u sheegay mise anaa u sheega labada yaa u sheegay aniga u sheega adigu أنا ماذا أشياء قاعد ماذا أشياء سا هرت لو متوعد سوفنا تنكوات حتى أنا إذا مهاد نقنا إن سنوات ما هيك لا إذا شيء جدونا إن وحان هلكا أسوفنا أنا جوا ذجرة لما أنتين إنا إذا مهاد نقنا وكاسي فتبركة وسيونا ها waxaan maqlay marwadii winkii xawayaan ay isbedeshay waxa weeyaan noqotay marwo waxoogaa hadalka dhudhumaya waxa ka jira marka inaan tahay maaragtay marka marwo tahay farqiga hadda ay iga muuqda u dhaxeeyo maasha Allah soo wada baxa marka waxa weeyaan marwada hadal lagu badin maayo marka anaa hadlay insha Allah biidna taala anaa dambeeno sida dhameystiraya horta run ahaantii dee arooskii waxa weeyaan muddo badan baa ka soo wareegtay hadda sida labuugaan ka joogno run ahaantii waxa weeyaan dee baraha bulshada kale tiktok waxa weeyaan tiktokeedu waxoogaa uu ka xiran yahay kaygina waa arkayseen dadkaygina waa xiran yahay marka run ahaantii haddana loo joojimayo annaga ka xaasila oo run ahaantii annaga joogna waxa weeyaan youtube run ahaantii labadeed wallahi caajis baanu ka nahay oo waxa weeyaan iyaduna kale intii hore dirqi baan ku duubi jirnay ilaahay baa xaalkii ogaa laakiin hadda wada jir baan wada joognaa waxa weeyaan inaan hadda sidii hore iska bedelaan rajaynay marwey maadaama isku imaanay marka insha Allah biidna taala kule safaro badan waxa weeyaan way soo gashay oo wallahi aad u dheer waan dareemi kartaan marka asxaabta qaaliga horta waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa walaaladay dhammaan muslimiinta meel kasta ay kala joogaan oo waxa weeyaan igu xidhan meel kasta ay joogaan waalid waxa weeyaan dhalinyaro hawleenamo waxa weeyaan waayeel aabiyo hooyo de kulli waxa weeyaan run ahaantii dareenka ii muujinayseen markii maariya timid iyo markii waxa weeyaan uu aroos ku dhacayba wallahi run ahaantii dareenka ii muujiseen aad baan uga helay wallahi de wax aan ku turjumi karay ma jirin markaas ay taagneyd oo de wax iga dhigtay aad baa u mahadsantihiin dareenkana qalbiga ku jiro ma wada mahadnaqi karin de waxa weeyaan dad yowga badan aad ka tirada badan
run ahaantii hadda waxay soo fadhiisay kolley long time bay ahayd oo aan iska kaftamaan dhahay 7 bax baan ku jirnay marka long time baa dee ugu dambeysay waxa weeyaan dee 2 week inaan is arki weyno marka waxa weeyaan hadda aan dee waqtigu noo munaasib noqday waqtigu noo haleelay inaan soo fadhiisano aan idin mahadnaqno waxa weeyaan hadda naga xumaan haddaan waqti dheer aan idinka maqnaanay waxa weeyaan hanaguna xumaan haddaan naguna qabanina waxa weeyaan marka asxaabta qaaliga waxaan leeyahay horta run ahaantii waa mahadsantihiin anagoo aad baa mahadsanhay marka waxa weeyaan ilaahay waxa weeyaan haydka jazaysiiyo qofkii wallahi adduunka waxa ugu qaalisan waa waqti qofkii ku bixiyay inuu anaga waxa weeyaan ducadana inta horta aan isguursanin ka hor qof walba uu noo ducan jiray ha noqoto kan yar ha noqoto inta badan waxaa u badnaa dad aad u weyn maamooyin aabooyin waa idinkaga mahad celinaynaa ducadiinana aqbalay noqotee maasha allah waxa weeyaan dee duco waalid baa ugu munaasibsan baladhowda ugu khayr badan marka ilaahay waxa weeyaan horta ilaahay waxa weeyaan hanaga jazaysiiyo ducadiina waa inagu dhacday waxa weeyaan ilaahay naga uu noo aqbalay inta dambana ilaahay noo sii aqbalo run ahaantii wallahi waxa ugu qaalisanta waa waqti dad ku bixiyeen na soo daawadaan juhdi tusaalaha man siinayaa adiga hadday daawanaya waxa weeyaan oo runtii anaga nagu xiran page ku xiran habeenkii waxaan xil dama late fan soo galaa live-ka sida imika kale 12 ama 6 saac kolba sad loo yaqaano waxa weeyaan 12 habeenimo aan ka baxnaa labada habeenimo run ahaantii dee 4 baana daawada 2 baana daawada 2 ma yara 2 oo qof markay ku daawanayaan habeenkii laga yaabo in shaqooyin tegayaan exactly marka run ahaantii waan dareemi karnaa wallahi farxadana siiseen aad waxa nooga qiimo badnayd inta waqtigana siineyseen marka run ahaantii waan idin mahad celinaynaa waxa weeyaan kula hadal kusii dheeraamayno mar labaad waxaan leeyahay aad baa umahadsantihiin dhammaan waalidiinta dhalinyarta waxa weeyaan oo run ahaantii waqtigooda iyo timekooda iyo juhdigoodaba na siiyey oo waxa weeyaan waxbarasho shaqo every time waxa weeye meel kasta qabanayso noo sheegay oo waxa weeye timeka dib uga dhacay hadduu doono dee hurdada la tagtay marka waxa weeyaan talabaad aan idin hayaana waxa weeye horta aan kaga soo gudubna mahadnaqi oo idin mahadnaqnay kulli ma soo koobi karno dad soo koobi karmayno qalbigeyga soo wada furfuri karmayno marka ka soo geyoomayno geeyinta ma taqaan horta geeyinta ka soo geyoomayno ma taqaan ka soo geeyinta waxa weeyaan waxa u taqaanaan marka kale leeyahay hadalka inta yani ma ku soo koobi karayo intaas leeyahay yani intaan ma ku soo koobi karo saas waa intaas ma ku soo koobi kari anuna waxaan dhahnaa haddana hadalka bilaabo kolle kasoo geyoomayo okay saas ma dhahdin kolle kasoo geyoomayno anagana waxaa dhahnaa hadalka maamaha yare aad way iga maqan tahay qofkii yaqaan meesha igu soo qorlak balo iga maqan tahay marka waxa weeyaan kolle hadalka haddaan bilownaan maanta kaa soo fursan dhana waan hadlaynaa kasoo geyoomayno hadal haddaan mar bilowno kasoo geyoomayno ma dhanan aniga ma soo dhamaan karno kolle marwadu way lowday kawantii ugu soo qoraysay wax xasuusto marka waxa weeyaan talabaad aan idin haynaana waxa weeyaan kolle insha allah biidnillahi tacaala horta ilaahay naga aqbalo waxa soo dhow carafo waxa weeye ilaahay naga aqbalo ilaahay ducada waxa weeyaan iyo waxa weeyaan khayrka iyo wax kastaba ilaahay naga aqbalo waxa weeyaan talabaad run ahaantii barnaamij baan idin haynaa barnaamijkaasoo noqon doona mid taxana ah oo waxa weeyaan 10 tallaabo hore u qaad fahantiin insha allah biidnillahi tacaala kole barnaamijkaas barnaamij dheer buu noqonayaa oo isla socod wanaagsan barnaamijkan adiga hadda i daawanaya faa'iido ku noqon doona insha allah biidnillahi tacaala isbedel baad ku dareemi doontaa insha allah biidnillahi tacaala wiig gudaheed marka waxa weeyaan run ahaantii dee ma dhahayo anu intaan soo duubo ma dhahayo saa laakiin waxaan sameynayaa sida ugu fudud aduguna yani isbedel ku dareemi karto ayaan insha allah kugu soo bandhigi doonaa insha allah biidnillahi tacaala waxaan leeyahay yana laga caajisin run ahaantii waxaan leeyahay anagana waa soo laabanay haye hadda ana caajisin hadda is caajisin ana caajisin kole waxa weeye marwadu hadalkan kaa qaatay wax hadal mid ku daraysa ma intaas iga egtahay intaas iga egtahay wallahi insha allah biidnillahi tacaala horta taliya ku dhaamsan waxa weeyaan kolley dadka tiktok waxa weeyaan nagala socdaa tiktok nagala socdaa taliyaan dhahnaa moogtay aan iska taliya saayasa marka waxyaaban caan ku ahayn bay kamid tahay marka run ahaantii waxaan leeyahay alxamdulilah rabbil caalamiin markasta ilaahay baa mahaddaas kale oo ilaahay kaas caafimaad iyo waxa weeyaan dee weji qurxoon waxa weeyaan wax kastaba dee noo fududeeyey inaan maanta video iska duubno inaan caafimaad qabno inaan halkaa idiin fadhino inaan idiin soo bandhigno dee mahadda ilaahay baa iskale alxamdulilah baan leenahay markastana
waxa weeyaan insha allah biidni tacaala nala socod wanaagsan naga caajisina kale anagu iska caajis baan nahay idinkuna ha nagu darsamina saasa ka dagaalantay marow waxa weeyaan ilaah ku barakay marow waxa weeyaan insha allah biidni tacaala waxa weeyaan isbedel baa dhici doona sida ugu dhaqsaha badan idinkuna nala socod wanaagsan aad baa umahadsan tihiin markasta waxaan leenahay waa idin jecel nahay sharaf waxaan kusoo xidhnaa talo wax gaar ma samaysana aan kusoo xidhno waxaan dhahnaa jecelka waaraan dhahnaa jecelka waaro insha allah biidni tacaala ilaahay nolosha inoo fududeeyo inta dambe ilaahay inoo fududeeyo waxaan leeyahay sharaf karaamo jecelka waaro